Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sida lambarada loogu shubto memory-ga ama maskaxda taleefanka ama Gmail loogu keydsado. Waxaa inta badan dhaco cilado badan oo ku dhaca taleefanada in uu kaa lumo ama kaa halaabo ama lagaa xado. Markaasna aad weydid lambaradii taleefanka kugu save gareysanay. Laakiin mar dambe ma dhici doonto haddii aad muuqaalkan daawato. Waxaan kugu tusi doonaa mobile iyo computer. Mobile old version iyo new version. Haddana aan ku hormaro new version-ka. Gal contacts-ka adigoo kasii dooranaya saddexda dhibic ee ugu sareysa, kadibna kasii dooranaya manage contacts, kadibna sii dooranaya import iyo export. haddii aan marka koowaad ku sharaxo importka wuxuu qaabilsan yahay lambaro aad mar hore maskaxda ku shubatay ama memory ku shubatay oo memory taleefanka ugu jiro. waad dooranaysaa meesha uu kugu jiro memory ama maskax, wuxuuna kuu sameynayaa in uu kugu soo shubo lambaradii kugu soo celiyo sim card, ama haddii uu sim card kugu jiro aad kusoo celisid maskax aad ku shubtid. haddii aan export-kana sharaxo, export-kan wuxuu kuu qabanayaa in lambarada kugu jira maskaxda taleefanka oo aad ku shuban kartid memory-ga taleefanka ayadoo aad heli kartid marka lambaradaas inta memory aad ku qaadatid aad meel dhigan kartid aysan kaa lumi doonin hadhowtina aad soo dhahdotid import. haddaan guda galno sida loogu shubanayo Gmail-ka adigoo taleefan isticmaalaya, waxaad ugu horeyntii galaysaa settings markaa gashid, kadibna waxaa kasii dooranaysaa cloud and accounts, kadibna waxaa kasii dooranaysaa accounts, kadibna waxaa sii dooranaysaa Gmail-ka aad ku shubanaysid, kadibna waxaa ka dooranaysaa sign accounts. haddii meesha ugu sareysa ay kuu tahay sign contacts-ka ay kuu tahay off, waxaad ka dhiganaysaa on. isla markaas shaqo surgeon wuxuu bilaabayaa nambaradii ku jiray maskaxda taleefanka inuu ku shubo Gmail-ka. taasina waxay ku sahlaysaa inuusan kaa lumin marnaba nambaradaada. waxaa jiro application lagu magacaabo Google Contacts kaasoo laga helayaa Play Store-ka oo asagana kaa caawin kara nambaradii Gmail-ka aad ku shubatay in aad si toos u aragtid. Play Store-ka tag, kadibna contacts-kaas soo download gareyso, waadna heli kartaa. linkigiisana description-ka ayaan kugu reebayaa. wuxuuna qaabilsan yahay number oo kaliya. haddaba Gmail-ka sideen ugu arki karnaa? Gmail-ka taleefanka kugu xiran waxaa ugu arki kartaa inaad Gmail aad soo furatid, kadibna aad ka dooratid Gmail-ka soo xulatid adiga oo Gmail-ka sii dooranaya magaca kugu qoran, kadibna dooranaya qaybta hoose menu, kadibna kasii dooranaya people sharing, kadibna waxaad arkaysaa contacts oo ugu sareysa. nambarada kugu jira mobile-ka dhanna waa kuwaana oo kugu jira aan dhahay cafwan Gmail-ka. haddana waxaan u gudbi doonaa taleefanada ah old version-ka oo version-kii hore ah oona ah taleefanka Samsung-ka. Samsung-ka marka ugu horeyn soo gashid contacts-ka inta badan wuxuu ka siman yahay new version-ka oo kala siman yahay. waxaad dooranaysaa meeshii saddex dhibcood lagu ogaay wuxuu ka dhigay more, kadibna waxaad kasii galaysaa setting, exporting iyo import contacts. intaba waad ujeedaa, waana sii isticmaali kartaa. inta kale oo horay ayaan kuugu sharxay. waxaa dhici karta inaad haysan taleefan Samsung ah oo aad haysato taleefan Tecno, Itel, HTC, Lenovo iyo wixii lamid ah. ayagana sidoo kale way fudud yihiin oo contacts ayaa soo dooranaysaa. haddii aan hadda usii guda galo qaybta computer-ka, taleefan ma haysatid, lambaradaadina Gmail ayaa ku shubatay, waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid oo aad midkaa rabtid aad la soo baxdid. waxaad ku heli kartaa nambaradaas adiga oo Gmail-ka ku shubatay computer-ka kusoo xira, kadibna soo kacsada oo soo doorta Google Accounts, kadibna kasii doorta markaa qaybtan ay imaatid people sharing. haddana waxaad ujeedaa qaybtii contacts-ka oo sida taleefanka ayuu kala mid yahay. nambaradaadii
oo idil halkan ayay ku jiraan. Numberadana lagama yaabo inay kaa lumaan, laakiin waxaad ku dadaashaa in gmail-kaaga aadan hilmaamin. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.